xilli lagu gudi jiray roobkii guga oo ka daay deegaano kamid ah gobolka Sool ayaa wali waxa ka taagan magaalada Laascaanood biyo yaraan taasoo keentay kadib markii ceelkii ku yaalay duleedka magaalada Laascaanood oo ay hirgeliyeen dhalinyaro iyagu isbahaysatay oo ku kala nool qurbaha iyo waliba wadanka gudihiisa kaas oo muslim ka yahay Cabdicasiis Axmed Cismaan indhaase ayaa sheegay in bamka ceelku uu xumaaday isla markaana gaadiidleyda booyaduhu ee ka soo dhaamsan jiray ceelkaasi ay tilmaameen inay tani caqabad ku tahay sida ay u keeni karto in biyo la'aan hor leh ay ku timaad oo baaxadda dadka ku nool magaaladu marba marka ka dambaysa ay sii badanayaan waxaana ay sheegeen booyalaydu in ay arintani walaac weyn ka qabaan haddii cilada ceelkan ku timi ay sii joogtayso isla markaana ay noqoto mid gabi ahaanba biyihiisi istaago kuwaasoo tilmaamay in si degdeg ah wax loogu qabto habsami u socodka ceelkan biyaha oo loo baahan yahay sidii uu u shaqayn lahaa maadaama baahida biyaha loo qabaa deegaankani ay tahay mid daruuri ah oo ceelka qura ee hadda looga soo dhaamiyay magaalada Laascaanood sidoo kale waxa jirtay in xilliyadii abaarta ay deegaamadan ka jirtay iyo waliba xilligan la joogo in ay ka cabaan geel aad u fara badan ali iyo waliba xoolo aad u tiro badan oo iyaguna ka quudan jiray biyaha ama laga waraabin jiray waa kuwan qaar kamid ah booyalayda oo iyagu ka hadlaya dhibaatada soo gaadhay ceelkan iyo cilada ku timi kaaga warramay ceelkan aan hadda dul taaganahay waa ceel kaliya ee lafdhabarta gobolka xagga biyaha uu ahaa waa ceelka kaliya intii uu shaqaynayay muddada ahayd laguga nastay baahidii faraha badnayd ee durdurka waa ceelkii labaad ee caawiyay durdurka inuu maartay xagga biyaha ka caawiyo ceelkaas oo ay istaagil ku noqotay maanta markii muddadii faraha badnayd ee abaartu ay dheeraatay xaggii shidaalka oo yaraaday oo ciriiri oo howlwadeenkii ceelku uu wadi kari waayey oo caqabad culus oo shaqsi kaliya ku noqotay iyo xaggii bamka oo bam awood yar oo aan bam u dhigmin ceelka ku jiro markii sidaa kadib haddana xumaaday oo isagu xag ciladeeda xaggiisa ah ay ka timi marka hadda arrintii waxay dhaxashay inay joogsadaan adeegii magaalada iyo miyiga labadaba uga baxay ceelka kan taasoo ay keentay labada ciladood shidaal la'aan iyo bamkii oo xumaaday markiis hore aan awood badan lahayn adigu ceelku biyihiisu way fiican yihiin laakiin deena bay u baahan yihiin يا ما أنت دور شير إلى آخر شير ولا صدر شير ما قرأت. أيوة. مركات وإلى لو شير ولا صدر. isku soo wada duubo ceelkan ayaa ahaa ceelkii quraha ee badbaadada u ahaa dadka ku nool deegaankan isla markaana ay si weyn uga mahad celinayeen dhalinyarada iyagu aloosteen ceelkani uu ka hirgalo deegaankan isla markaas kuwaas oo iyagu si iska wax u qabsaa ugu biyo dhaamin jiray dadkooda iyo dalkooda ku idlaysan abaarihii la soo maray Cabdiqani Xasan Faarax TV-ga qaranka magaalada Laascaanood.